كان aan u socono maanta aan rabnaa aan isku xirno waa Binance waa kana meesha saaran aad arkaysid waxaan rabnaa inaan ku xirno wax la yiraahdo Trader Wagon marka aan Binance soo galno marka waxaan soo galaynaa Binance aan account ka sameysanaynaa haddii aad hore account uga lahayn linkiga profile-ka saaran ku dhufo qaybta ugu koreyso Binance ay ku qoran tahay halkaas iska soo diiwaan gali marka aad soo gasho aad ku dhufato Binance oo soo kaco wajiga halkan kaaga muuqanaya waa sida uu kugu soo baxay Binance ee laga yaabo marka koowaad oo maxaa la yiraahdaa aad furato ama aad soo degsato inuu sidan kugu soo kicin waxaan isticmaalaynaa waa versionka mobile-ka haddii aad laptop-ka ama computer aad isticmaalaysana waa ka duwan yahay sidan oo si ka balaaran waaye marka kan anagu u socono maanta aan rabno waa qaybtan ay ku qoran tahay future si aad u sameyso copy aad qof kale u copyeyso oo trade aad u sameyso oo lacag u sameyso waa inaad Binance soo gashaan macnaha copy-ga kaliya Binance ma sameeyo sida asxaabta qaar ay su'aalo i weydiinayeen platformyo badan aan sameeyo laakiin anagu midka hadda aan ka hadlayno waa Binance marka waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay future markaad ku dhufato waxaad tagaysaa meeshan ay ku qoran tahay leaderboard halkan ay ku qoran tahay leaderboard waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay more maadaama aniga uu hadda igu xiran yahay Trader Wagon igu xiran yahay isla markiiba waa ii soo saaraya ama ku xiro leeyahay ama marka qaarkood xitaa dus kugu xirnaan waa uu ku saaraya wuxuu ku leeyahay ku xiro marka dadkan waa all traders waaye noocyada ugu duwan oo traders waaye laakiin anaga waxaan rabnaa qaybta Binance dhexdiisa ma rabnaa waxaan rabnaa inaan Trader Wagon aan raacno asxaabta ka shaqeysto marka halkan copy aad ku dhufanaysaa halkaas uu ku soo fuulaya copy aad leedahay si aad ugu xirto account-kaaga Binance aad ugu xirto Trader Wagon aad ugu xirto halkaas copy aad ku dhufanaysaa haddii aad halkan sii fiiriso waxa kale oo dib u xasuusinaya waxaan ka ganacsan rabno waa lacagta USDT-ga hadda aad barnaamijka taqaano coin noocyada kala duwan aad wada isticmaali kartaa laakiin anaga hadda waxaan rabnaa USDT waana lacagaha laga ganacsan doona halkan aad arkaysaa waxaad ku dhufanaysaa copy trading laakiin waxaan rabnaa inaan u gudubno qaybtan ay ku qoran tahay Trader Wagon halkan aan ku dhufanayna waxaan leenahay copy waayahay sida halkan kaaga muuqanaysaba waxaan joognaa wajigii ugu horeey oo maxaa la yiraahdaa Trader Wagon aan ku jirnaa laakiin adiga wuxuu ku dhihi doonaa ku xir ka bacdina account-kaaga Binance-ga ayaa login ku dhihi doontaa isagana video dhameystiran oo israacsan aan ka sameyn doona haddii la raali ka noqdo marka waxaan rabnaa qofkaan raacayno inaan fiirino shuruudaha aan ku xulan lahayn inuu buuxiyo sida caadiga ah qofkan waxaa loo ogol yahay ilaa 200 qofood inay raacdo ka koobiyeysato laakiin 158 qofood ayaa raacday qofkan oo kale waxaa loo ogol yahay 200 qofood inay ka koobiyeysato laakiin sida u jeedaba 200 way ka koobiyeystaan hadda halkan waxaad ogaan kartaa 7 maalmood ugu dambeysay daartan waxaad ka dhigan kartaa bil marka waxaan fiirinaynaa balkan aan fiirino hadda buuxa isaga 200 qofood loo ogola 200 ay u buuxdo qofkan markaan fiirino isaga aan fiirino horta faa'iidada uu sameeyay oo boqolkiiba 280 ama boqolkiiba 300 uu sameeyay arkaysaa 7 maalmood ugu dambeysay faa'iidada uu sameeyay waa intaas qofkan 7 maalmood ayuu trade sameeyay 7 maalmood trade uu sameeyay waa 60 trade buu sameeyay 60kii trade-na waa ku guuleystay waa arkaysaa boqolkiiba 100 waa win rate-kiisa waa boqolkiiba 100 marka waa qofka aan rabnay inaan raacno laakiin marka qaarkood waxa laga yaabaa inaynan nagu filnaanin intaan kaliya u baahano inaan hoos u sii daadagno marka win rate-kiisa waa boqolkiiba 100 qofkan haddii aan damacnay inaan raacno ma raaci karno waa buuxa hadda waa full laakiin xogtiisa kale waan sii ogaan karnaa haddii aan hoos u fiirino waxaan fiirin karnaa wax la yiraahdo order history-giisa haddii aan order history-giisa fiirino waxaan ogaan karnaa lacagihii uu sameeyay trading uu sameeyay sidii ku dhamaadeen waa arkaysaa boqolkiiba 100 profitable boqolkiiba 100 waa arkaysaa boqolkiiba 100 sida awgeed tradidiisa waxay noqdeen boqolkiiba 100% sidaas ayuu u helay marka performance-giisa tagtid waa ka guud waad arkaysaa haddii aan halkan fiirino uma waraad tiraadid
waxaad halkan arki kartaa hadda haddii uu trade qaatay, trade-ka uu qaatay halkaasuu kaaga soo muuqanaya, historigiisii halkaasuu kaaga muuqanaya. haddii uu lacag dhigtay ama kala baxayna halkaasuu kaaga muuqanaya. aan fiirin markaan haddii lacag uu la baxay iyo haddii uu lacag sameeyo la baxay iyo haddii uusan la bixin. halkan sida kaaga muuqanaysa 500 iyo xoogaa buu la baxay, 500 iyo xoogaa buu la baxay, 500 iyo xoogaa, 600. lacagta marka ugu horeysa ugu dhigtay waxay ahayd 800. lacagahaas kaloo dhanna waa lacagihii uu ka sameeyey tradeedii asaga uu qaatay. marka muddada uu qaatay waxaan ka wadaa 7 maalmood in trade uu qaato arkaysaa dhammaantood wada successful noqdeen. marka qofkaas oo kale ayaan rabnaa inaan koobiyno. qofkan marka aad fiirisid waxaa loo ogol yahay minimum amount aad kusoo raaci karto waa inaad $100 aad dhigataa ay ku taalaa akoonkaaga Binance. lacagta aad ku raacaysana waa USDT waaye. minimumka lagu ogol yahay halkii mar aad ku raaci karto qofkan waa $10. haddii aad rabto 100kaaga waad dhigan kartaa. faa'iidada kale lacagtaada intay la eg tahay bay badnaanteeda ku xiran tahay. marka waa halkan waa gudihii waxaan ku tusinayay waxa loo yaqaano Trader Wagon. markaad ka soo gasho dhinaca Binance Trader Wagon haddii aad iska diiwaan gashan laftirkiisa linkiga wuxuu saaran yahay profile-ka wuxuu ku xigaa Binance account ku xigaa hoostiisa iska diiwaan gali. Binance hadaad lahayn qaybta u koreyso Binance iska diiwaan gali. markaad iska diiwaan galiso waad wada socon karnaa qaybtii koowaad soo fiiri sida guud oo aad aragtay macna sida guud oo qofkii boqolkii percentage-ka uu faa'iido aad guud arki kartaa. kana waa qaybtii labaad, laakiin qaybtii saddexaad waa qaybtii koowaad oo kale aan ka dhignaa. waxaan ka wadnaa waxaan kasoo bilaabaynaa bilow ilaa iyo dhammaad. macnaha sidaad step aan soo sameynaa sidaad u sameysan lahayd account Binance kadibna lacag dhigashada waa iska wajigoono isaga hal video aan ka dhiganaa. laakiin markaad account Binance soo sameysato qofka markaad trade-kiisa koobi gareynaysa ama aad raacaysid waxaan fiirinaynaa shuruudo kale oo dheeri ah oo aad ku fiirsanaysid dadabteed inaad sii raacdid. featureska mobilka aad uma badna, laakiin marka aad computer isticmaalayso waa ka badan yahay waxyaabo badan oo kasii balaaran arki kartaa. waxaan arkaynaa qofka intuu take profit ka dhigan karo, intuu stop loss ka dhiganayo, halka trade markuu qaato intuu khasaari karo, halka trade intuu faa'iido karo duu faa'iido. marka waa wada soconayna hadii la raakano qaybta ku xigta huday madaraanin. haddii aad hore u diiwaan gashnaan waana kuu sheegay Binance hadaa akoon leedahay waa okay, waa verify gar kaliya ka dhigo, verify ka dhigo kaliya. haddii aad lahayn hadda waad samaysan kartaa wali waxaad iska diiwaan galin kartaa linkiga profile-ka saaran. haddii aad YouTube channel-ka daawanaysid videoga hoostiisa description hoostiisa linkiga saaran isagana halkaas iska diiwaan galin kartaa. haddii aad su'aal dheeri u baahato rabto inaad wax ka fahamtid wali waad i weydiin kartaa. waliba